dagaalka bariga dhexe kan u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil oo isku duc ah iyo Iiraan oo kaalmo ka helaysa Xisbullada Lubnaan ayaa galay maalintii 13-aad. waa tiro ka badan inta uu socday dagaalkii bartamaha sanadkii hore dhex maray Israa'iil iyo Iiraan ee ugu dambeyn ku gabagaboobay duqeyntii Mareykanka ee aagaga bacriminta nuclear-ka Jamhuuriyadda Islaamiga ah. maadaama uu dagaalkani weydaartay tirsiga gulufkii hore waxa uu noqonayaa kii ugu muddada dheeraa taariikhda ee dhex mara dhinacyadan waxaynuna muuqan isku dul taagaynaa ilaa hadda tirsiyada khasaare ee laga diiwaan geliyay colaadan sida xawliga ah u gilgishay dhaqaalaha dunida oo dhan galaafatay nolosha dad badan sidoo kalena burburisay sumcaddii ammaan iyo maalgashi ee wadamada khaliijka kuwii loogu yeeri jiray jannada dunida ee haatan laga qaxayo. docda geerida dadka dalka dhimashada ugu badan tirsaday waa Iiraanta huwantu dagaalka 13 maalmood jirsaday ku hayso oo lagu waramayo in tirada dhimashadu kor u dhaaftay 1300 oo qof halka in ka badan 11,000 oo qofna ay dhaawacantay sida ilo sugan laga xigtay. Israa'iil oo si adag loo qariyay khasaaraha dhimasho iyo hantiyada ee ka soo gaaray madaafiicda sida saacadlaha ah ugu hoobanaya nidaamkaas tan iyo bilowgii dagaalka waxaa la sheegay inay kaliya ku dhinteen 14 qof. ha ahaatee waxaa la qiyaasayaa in tirada dhimasho iyo dhaawac ee nidaamkaasi dhab uga fog tahay tiradan oo ah inta warbaahinta loo sheegay. Lubnaan 650 ayay dhimashadu gaartay dhaawacuna 1,000 bar. Mareykanku 7 askari oo kaliya ayuu sheegay inay uga dhimatay dagaalkan inkastoo Iiraan sheegtay inay 100 askari ku beegsatay saldhigyada Mareykanka ee gobolka ku yaal. Kuwait 6 qof, Imaaraadka 7, halka Ciraaq ay uga dhimatay 28 qof. docda dhaqaalaha sida aynu marar badan uga warranay dharbaaxo daran ayaa dagaalkani gaarsiiyay suuqyada tamarta iyo shidaalka halka haatan xaajadu soo gaartay maciishada oo iyana qayladhaantu gaartay dalalka khaliijka gaar ahaan Imaaraadka, Sacuudiga iyo Qatar oo 60meeyadii sano ee ugu dambeeyay ahaa hoyga nabadda jannada maalgashiga iyo jihada dalxiisku waxa ay waayayaan sumcadoodii saldhigga u ahayd koritaanka dhaqaalahooda xawliga ku socday. heer maalgashadayaashii, dalxiisayaashii iyo shisheeyihii dalalkan dhaqaalahooda isbedelka u keenay ka qaxayaan ayay gulufkan ka dhaxleen wadamadan oo ah kuwa ay ka soo yeerayso qayladhaanta ugu xoogan ee qusaysa in xal degdega loo keeno xiisadan raagtay. dhaqaalaha ay sida maalinlaha ah wadamadan ay ugu waayayaan dagaalka gobolka ayaa lagu sheegay inay haatan ku dhowdahay 40 bilyan oo euro taas oo ahayd lacagta inteeda badan ka soo xiran jirtay dalxiisayaasha dalalkan maalinlaha u iimaan jiray. wadamadani waxa ay Mareykanka ku eedeynayaan inuu gabay kaalin difaac oo ay waaqoodba uga tashanayeen balse haatan u muuqata inay ahayd humaag Mareykanku danihiisa ku gaaro oo ducaan Israa'iil ahayn loogu danaynayn. xaqiiqadan qaraari waxa ay wadamadan baday heer ay golaha ammaanka qaramada midoobay shalay geeyeen qaraar ahaa inaan Iiraan dib dambe u weerarin ilaahooda dhaqaale. mase dhicin oo qaraarkan kadib Iiraan waxa ay duqeyn cuslayd ka geysatay mid ahaan dekedaha ugu waaweyn wadamada gacanka waa Salalahda Cumaan oo la burburiyay kaydadkeeda shidaalka taasoo ilaa haatan la werinayo inay gubanayso halka sidoo kale subaxnimadii saakay ay Tehran gantaalo iyo weeraro diyaarado daroonta ah ku hujuuntay Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain ilaa Qatar. talaabooyinkani waxa ay ka dhigan yihiin inaysan waxba ka hirgelin baaqa golaha ammaanka qaramada midoobay ee sharci darrada ugu yeeray weerarada Iiraan ee dalalka gacanka halka golahani uusan xitaa soo hadal qaadin duulaanka qaawan Iiraan ka dhanka ah ee 28 February Mareykanka iyo Israa'iil wadajirka ugu qaadeen dalkan ka oo galaaftay hogaankii sare ee Iiraan gumaad shacab ka dhashay hanti badan oo ilaha dhaqaaluhu ugu culus yihiin gaarsiiyay Jamhuuriyadda Islaamiga ah. docda Mareykanka sida ay wariyeen shabakadaha Axios iyo New York Times waxa xogeysanaya baaqyada joojinta dagaalka ee gudaha Mareykanka waxa xukuumadda Trump culays xoogan ka wajahaysa dhinaca dhaqaalaha xadbeelka ah ee dagaalka ku baxaya iyadoo la wariyay in asbuucii ugu horeeyay ee gulufkan Mareykanku ku waayay lacag gaarta 11.3 bilyan oo dollar halka wadarta guud ee inta gulufku socdo lagu qiyaasayo in ka badan 20 bilyan oo dollar. tani waxa ay abuurtay dhaqdhaqaaq xoogan oo ka imanaya golayaasha Mareykanka oo soo jeedinaya in haddaan dagaalka la joojin dalkaasi wajihi karo dhaqaale burbur xoogan. tani waxa ay sababtay in Donald Trump carrabaabo xilliga suurtagalka ah ee la filan karo in dagaal ku joogsado. madaxweynaha Mareykanka ayaa marar badan xusay in Mareykanku joogo marxalad uu dagaalka ku joojin karo halka warbixino soo baxaya ay xusayaan in cidda haatan danaynaysa si socoshada gulufka Israa'iil oo kaliya tahay taasoo kalifaysa inaan Mareykanku kaliya ahaanteeda furinta uga bixin. docda Iiraan madaxweynaha dalkaas Mas'uud Pezeshkian ayaa shuruudo adag ku xiray joojinta dagaalka ee dhinacooda. Iiraan oo u muuqatay in weli awoodi ku dambayso aysan u dhoweyn marxalad isdhiibineed ama inay gulufka docdeeda joojiso ayaa u muuqata mid haatan diiraddu u saaran tahay
ka baaraandegidda inaan dagaalkan oo kale mustaqbalka dib u soo noqon, waxaana taas laga dheehan karaa saddexda shuruudood ee uu joojinta dagaalka docdiisa ku xiray madaxweynaha dalkaas, kuwa oo kale ah in si buuxda loo aqbalo xuquuqda madax bannaanida daleed iyo samaysashada tamarta nukliyeerka ee Iiraan, in magdhow laga bixiyo khasaaraha naf iyo hantiyeed ee Iiraan ka soo gaaray dagaalka Mareykanka iyo Israel, iyo in la helo damaanad qaad buuxa oo ballan qaadaya inaan dagaalkani dib u soo noqon mustaqbalka. shuruudaha Iiraan, shardiga Israel ah inaan gulufku dhammaan ilaa ay burburiyaan guud ahaan nidaamka hogaamineed ee Iiraan, iyo damaca Mareykanka ee ah inuu goobjoog ka noqdo ilaa daqiiqada ugu dambaysa ee guulka helidda gulufkan uu nidaamka Israel ku kaalmeynaya, waxa ay tusayaan in weli masaafo durugsan laga fog yahay mustawaha dhammaadka dagaalka.